waxaan maanta halkan u joognaa inaan dhagax dhigno kordhin 3 fasal ah oo lagu sameeyo dugsiga Sheedaha oo qayb ka ah mashruuca waxbarashada dadka qaxootiga ah oo ay fangareyso hay'adda UNHCR ayna fuliso NRC mashruucaasi hadda waxa weeyaan laga dhisayaa dhismaha ilaa 6 fasal oo cusub waxa kaloo dib u habeyn lagu sameeyaa ama dayactir ilaa 20 fasal waxa kaloo qayb ka ah ilaa 50 fasal oo kuraas la siinayo dugsiyada dawladda iyo dayactir lagu sameeyo 3 garoon oo kamid ah garoomada dugsiyada hoose dhexe runtii wuxuu qayb ka yahay in kor loo qaado bilicda iyo maad aragtay waxbarashada heerka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe waxaan filaynaa marka in arday badan ka faa'iideysato waxa kaloo filaynaa inuu kor u qaado maad aragtay isdhexgalka bulshada isla markaana ay sidoo kale ka faa'iideysan doonaan arday badan iskuulkan oo kale marka waxa yaraa capacity-giisa ama qaadkiisa marka kordhinta la sameeyo waxay keenaysaa in tiro badan oo ardayda area-da ku nool ay ka soo qayb galaan oo waxbarasho helaan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo aad nooga caawisay sidoo kale waxaan ugu mahadnaqayaa UNHCR oo qayb laxaad ka qaadatay aad baad u mahadsantihiin